السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما مالين كله قرح بدن بيشك داونيسان وسعيد سربيا ولكن سعيد سربيا waxaa jira dad fara badan oo haddana dhahay ka soo hadal arinta Bosnia aan waxay kaga wadaa dhigihiina isiya waa fiidiyoo xiiso badan oo aad u xiiso badan jaanisi badanna way kaga furan yihiin sababta waxaa jira Soomaali badan oo indhe xiran oo indhaha ka xiran oo jecel in wax badan la fahansiiyo sababtoo ah anaga da Soomaalinahay fahamka aad u weeyar yahay marka waxa waaye waa arintii hadda Bosnia imaashada Bosnia waxbarashada shalay waxa ka soo hadlay arintii ahayd dalxiiska Serbia maanta waxaan ka hadlayaa arinta caafimaad arinta waxbarashada oo loo imaan karo Bosnia iyo Serbia waa laba wadan oo hadda kala go'ay laba xuduud ay kala leeyihiin oo aan ka wada hal xuduud ay leeyihiin marka Bosnia uma badno Soomaalida oo sida Serbia kale ma ahan Soomaalida kalimaan uma badno xitaa Afrikaanta ajaanibta kale to haddii noqoto Afrika meesha rabta ka noqoto Kenya Ethiopia meesha rabta noqoto uma badno ala kulli xal ajaanibta fara badan oo imaanayso sida Serbia kale ma ahan Serbia waa wadan international European ka imaado Americana imaado cid walba imaato laakiin Bosnia saas oo kale ma ahan waa wadan yar tirada lagu sheegay Bosnia waa 2 milyan population kooda 2 milyan oo kaliya waay marka Bosnia waa jaanisi badan tahay imaashadana aad iyo aad u fududahay kaliya waxa loo baahan yahay shuruudaha soo socda inaad soo buuxisid oo ah Bosnia marka rabtid inaad imaatid waxbarasho kale ay noqoto jaamacadeeda aad ay ugu fudud yihiin sida Serbia kale Serbia naftirkeeda ma dhibadno laakiin markii la isbarbar dhigo sababta Soomaalida xaq uma badno Bosnia oo Soomaalida way ku yar tahay Soomaalida waxay u soo badan yihiin Serbia u soo wada baxaan laakiin Bosnia wax aado ma jiraan sababta Bosnia qof linkigeeda haya ama qof informationkeeda haya oo ka hadlo weligeed ma arkin ba aniga ka hor sababta Soomaalida ma taqaan umaleynaa that's why idin leeyahay wadan yar oo la fahansaneen boqolkiiba waa ka janas fiican yahay European kale to imaashadeeda sababta Bosnia dad tagto qofka doonaya inuu Europe isu gudbo aad ay ugu fududaa waxa daris la tahay Bosnia Croatia haddaad rabin inaad Croatia aadin waxa daris la tahay Slovenia tagaysaa Slovenia ka sii baxaysaa Talyaaniga galaysaa Talyaaniga haddaad tagtana Europe waa joogtaa meesha rabtaa aadi kartaa Bosnia marka jaamacadaheeda waxay u badan yihiin boqolkiiba 80 private way labaatan ka soo hara oo kaliya waxay yihiin kuwa governmentiga oo dawladda ah 80 kale waa private waxa ka wada calshan waa jaamacado oo lacag ku bixinaysid haddii noqoto inaad imaatid ama haddii ay tahay inaad nin wax qof wax ka barnay aad tahay lacagtiisana wato kale taada tahay waa sameyn kartaa oo waa tay kartaa linkiga waxa soo dhigayaa qaybta community waxa soo dhigi doonaa linkiga jaamacadaha Bosnia kuwa private ka sidoo kale kuwa dawladda waa la abaalgareyn karaa laakiin maadaama aadan ahayn qof wadanka u dhashay ama sharci wadanka haysto way yara adag tahay inaad abaalgareysid jaamacadaha dawladda sababtoo ah qof waxa tahay wadanka u dhalanin ama sharci wadanka haysanin marka waxa ku fiican mar walba kuwa private ka inaad abaalgareysid private kana way yara fududahay oo boqolkiiba 95 aad u fududahay waxa soo dhigi doonaa commentiga linkiga jaamacadaha Bosnia waa sida similar waxay isku yihiin sida Serbia kale to magaca gelinaysa waa buuxinaysa shuruudaas waraaqadaas waa la soo bixaysaa linkiga waraaqada ku jirto oo invitation-ka waa soo baxsanaysa marka soo baxsatid meel photocopy aad tagaysa waa soo daawacanaysa magacaaga ku qoraysa nationality-gaaga magacaaga saddexan meesha aad joogtid waxa u baahan tahay fiisaha u baahan tahay asaas saddex nooc u kala baxo hadii ardaynimo tahay hadii dalxiis tahay hadii waxbarasho tahay waxa rabtaa noqoto type visa aad codsanaysa aad ku qoraysaa waqtiga aad ku soo aadantaa qoraysaa waqtiga aad dib u noqonaysa aad qoraysaa sababtoo ah waxa laga rabaa ticket go and back oo ah ticket aad jaranaysa ma ahan kaliya marka safaaradda visa ka xariisanayso waxay ku weydiinaysaa safaaradda inaad la imaato ticket booking reservation oo go and back marka ma u baahan inaad ticket goostid shuruudahaas aad buuxinaysaa bis meesha waraaqada invitation waxa ku qoraysaa oo admission jaamacadda ka wada invitation ma admission jaamacadaha ogolaashaha Serbia waxa ku qoraysaa kaliya waraaqadaas waxa ku qoraysaa kaliya shuruudaha magacaaga nationality-gaaga waxa information-kaas dhan marka gelisid email leeyihiin emailka ugu diraysaa 24 hour inta la gaaro way ku soo jawaabayaan marka ay ku soo jawaabaan then waxay noqonaysaa inaad payment-iga bixiso videogan shalay waxa uga soo hadlay payment-iga sometimes way dhib badnaan kartaa payment-iga sababtoo ah sidaad anaga caadiyan ognahay bangiyada Soomaaliya ku yaalo iyo kuwa Europe wax connection ka dhaxeeya ma lahano isku ma xirno sidaad Soomaaliya bangiyada ku yaalo hadii noqoto IBS ama Premier Bank kuwaas hadii noqoto inaad lacag ka soo dirtid way kugu adag tahay inaad lacag u soo dirtid Bosnia ama Serbia meesha rabtaa noqoto marka sometimes waxa qasab ah inuu qof wadanka ku joogo oo jaamacadda tago oo visa ka shuba admission-kina ayaga email ahaan kugu soo dirayaan admission-ka dahashana visa waxa xariisan kartaa waxa ka codsanayaa
haddii uu videogan kusoo gaaro inaan nala wadaagto like iyo share iyo flow. haddii aad ka hesheen videoyadan waa soo badinayaa, commentiga ay ugu soo qori kartaan meel allaala meesha aad doonaysaan inaan kasoo hadlo.